marka sidqu waa lagu badbaada aakhiriya adduunba mustaqbal fiican buu yeeshaa xataa ubadka runta sheego kuwa kale waa kee mustaqbal fiican yihiin meel fiican bay ku dambayn doonaan qissa طريفة sheegan culimadu في باب الصدق سيدنا عمر xilligu khaliifka maalmaha kamida qole muslimiin oo miramiya u socdaalay dhaxda markuu sii marayay ayaa oon badan baa qabtay meel biyana uu garan waayay asaga rag la socdayba meel fog buu ka arkeen buul ku yaala way ku leexdeen war biyana siiya islaana haweenay waayeela oo gabadhina ay la joogtay oo ugu tagay xuur adoonti ilaahay markuu salaamay kadib biyo ma haysaan wax biyo ma haynay jiri xuur biyo haday heli karin bal caana siiya caana ma haynayti anaga biyo weyna xaqan caana ka keenay gabadhu baa intay booday tirhooyo ilaahay ka cabsee sibraarkaas caana ku jira sibraarkaas caana biyo ma hayna laakiin sibraarka uu baxabatay caana burka ah maamada way xado way fashilanto sibraarka caana ka soo jibsidana Umar Baysis hani markuu cabay wax yar joogay buu gabadhan yaa dhalay yay tahay nin reer bani Thaqiifan u dhalay jir waan kaaga fadhiyaa gabadha midaanan u fadhiyaa wiilu dhalo Caasim la oran jiray buu u doonay oo lagu meeriyay Caasim ibn Umar ibn Khattab afantan beelata Caasim ibn Umar ibn Khattab buu u doonay asiga baa guursaday waagi dambe gabadh bay dhashay oo u dhashay Caasim hal gabadh bay u dhashay gabadhi waxa guursaday Abdul Aziz ibn Marwan gabadhi Caasim uu dhalay ee gabadhi yaray runlowda ahayd run sheegtada ahayd ay dhashay waxa guursaday Abdul Aziz ibn Marwan Abdul Azizna waxa u dhashay Umar ibn Abdul Aziz bay u dhashay al-Khalifa ar-Rashid Khalifa al-Khamis meeshu Umar awuga ooga yahay khaliifkan waa halkaas Caasim baa u ah awow Umarna muxuu yahay aw labaad saa u fahma gabadhi barakaysnayd ee reer bani Thaqiif ee run sheegta ayay duqda fasashay ayaa gabadhi dhashay baa dhashay ninka la Umar ibn Abdul Aziz ibn Marwan Khalifa ar-Rashid idan runtu waxay leedahay aayatin mustaqbal bay leedahay nin Ismaaciil ibn Ubayd la oran jiray faqih Shaami aha يا عبد الملك باوحور علماء ذرين أفي عنه وأفكار يقانو عربي يقانو أديبة أو قبياء أو فقيه أو عالم أو مفسرة أو ميلو البرد ما يسترن هلا يكانوا ومع ذلك الربطة عرورت إذا رباب السجون إنه وحبره ومشارف عن السي عرور دوري طبعا أو الأب من ميلو أوروري وحبر بوري ويجبر وكوك اللي يجري علم أبناء الصدق كما تعلمهم القرآن واللي يجري علم أبنائي الصدق كما تعلمهم القرآن اللي ما هو قال له أبو يرنط إنه الشيء وبنته وكعاجه هدي له وقرك اللي قد له لا تلعيه فقلنا قني مرضى به ما كرنت الشيء حيوه والله سيتشيع على الجود اللي ديبه مالك وبينك أقبحه لا عقابه ولا جناح قاد يقول على اللي دي الله في شيء طبعا الله صوت قادين وإن للدرس رنت قيمة إلى هذا عروت الله أبيه هذيك لو عوي باشو شقي نقول سابينتا وحاجر أي قصة الله إلى هذا حرب الفجار وحكب الأوضيبة إلى هذا الروايات كم إذا إنه عكات سوق ليدا يسقى الصبح جوجا يري عريا يقال عن ديريسان ومشى جوجا ساكا مركز أو حلقو يري adigoo ree hebel oo inan gumeeda miyaad annaga naleedahay annagoo cukaad la jooga saaka iyo iga laan dheeraysan annagii baaba joogna saadada ku ahayna seed noo aragtaa markaasaa wuxuu yidhi carninkii iga laan dheeraysani lugtayda ha jara saak lugtii baa loo yimid waa la gooyey rag badan baa u dhintay waxaa lagu qiyaasaa 72,000 oo nin baa u dhimatay lugtaas soomaanad garanin مجتمع السيدة أنه قبيالة ديسية ثأريجيس السيدة يهي ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين باقوي قوضة كميدة هيد هدين لقرد الرئيستو قرد الرد الشيد بأنه قرد الروين كحلين دون أبو كهن جوينين لانديراني مشيك كواسا إلهي النبي محمد صدري وحيو سميي وإسلام كأجيهي
in wixii ay ku fikirayeen inta laga saara wax ka wanaagsan loo tilmaamo oo la yidhaahdo waxaa lagu fikiri islaamka maxaad u qabatay waxaa lagu fikiri diinta halkeed gaadhsiisay waxaa lagu fikiri imisa miskiin baad caawisay waxaa lagu fikiri oo lagu tartami imisa qur'aanka ayaad xafidsan tahay waxaa lagu fikiri oo lagu tartami imisaad musaalaxa iyo dad dib u heshiisiisay imisaad cadaawad iyo fatiil iyo dhibaato jirtay meesha ka saartay amhila alculya walahdaafi alcaaliya buu qur'aanku sameeyey markaa ilaahayna wuxuu leeyahay yaa ayuha annaas innaa khalaqnaakum min dakarin wa unhaa wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila litacaarafuu ina akramakum cinda allaahi atqaakum qaacidadaasaa la siiyey waxaa la yidhi ka idinku sharafta badan ma doonaysaan waa ka aliimaan waalcamalu saalix idinku badiya ee ilaahay idinku dhowba hadba idinku sharaf badan baa la yidhi ma aha kay qoyskoodu tiro badan yihiin ama qoyskoodu yar yihiin macnuhu ma aha baa la yidhi ilaahay wuxuu tilmaamay inaad qabiil ka dhalataay maaha inaad dadka ugu faanto waa litacaarafuu in lagu garto waxaan ahay hebel ree hebel baan ka ahay dadku inay isgartaan oo qofka nasabkiisa la garto laakiin waxaa laysugu faani karaa ina akramakum cinda allaahi atqaakum qaacidadaasa layna siiyey jaahiligu waxay haysteen waxaynu maanta haysanno oon weli inaga tegin oo dhibaato ah oo ah in qaacido waxay isticmaali jireen unsur akhaaka daaliman aw madluuman ina adeerkaa mar walba isgarab taag hadduu gardaran yahay iyo haddii laga gardaran yahay waa in adeerka nebi muxamedna tiun buu ku celiyey uu ku yidhi unsur akhaaka daaliman aw madluuman war waa sax buuhi qaacidadaasi maba khaldana saxaabadii markaasay yaabeen oo waxay yidhaahdeen annaga caadadayadu waxay ahayd in adeerkaa mar walba garab taagnow walaakiin dhibaatada ah in islaamnimadii annagoo qaadannay oo qabyaaladii ka tagnay nalagu yidhaahda xadiid saxiixa nebi muxamed unsur akhaaka daaliman aw madluuman ma wixii baa dib loogu noqonaya maya nabigu tacriif kale unbuu saaray isla qaacidadii weeye laakiin dhaqankiibuu wax ka beddelay muxuu tilmaamay wuxuu yidhi walaalkaa u gargaar haddii la dulmay cidda dulmaysa ka qabo waxaad tidhaahdaa war waad ka gardaran tihiina jooga hadduu isagu wax dulmayana dulmiga ka qabo oo waxaad tidhaa war waad gardaran tahay hebelow joog xadkaa ma dhaafi kartid xaqa adigu ma lihid macnaheedu waxa weeye marka haddii aad qabato ood gacanta qabato isaga nusro waxaa waa inaad dulmigii uu geli lahaa iyo xaqdarradii ka qabatay weeye isla qaacidadii baa nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiid saxiixa uu ku keenay oo alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد إخواني إلهي بأنه مهد علينا رب سبحانه وتعالى إلهي نقول جمعيي ما شان قيمها بضن سيئان اسكو حاسوس إن ذكرك إلهي موضوع عن سووني وحاول رمنا إنا نقدرنا هدي إلهي لهذا عثمان ابن عفان أمير المؤمنين رضي الله عنه مناقبتي سواد قناة سان وحل كوبي كرماء صاحب الحياة نبينا عليه الصلاة والسلام دور مواقف وعجيب أبو قرب استاقي وحانا إنقع عصاني صحابة دي يسيرا ضوضا إن لا أخريو إيمان باكو كردي صحابة سيد النبي قرب استاقين عليه الصلاة والسلام say nebi maxamed u jeclaayeen say ayaga dhexdooda isku jeclaayeen mawaaqif bay istaageen cuthmaan ibn cafaan qisaa la sheegay dhowr mawaaqif buu leeyahay isku dhadhow maalin baa waxaa nabiga calay salam waad arkaysaa nabiga adduunyo waa nacay adduunyo inay waxba ahayn buu nabigu u arkay calay salam waa ka jeestay nabiga calay salam adduunyada hadda annaga maanta aan isku dhadhajinayn nebi maxamed waa ka jeestay calayhi salaatu wasalaam inay macno leedahayna uma arkaynin bal ee nabigu waa xaqiray ilaahay baana xaqiray guriguu imaaday caaisha nabiga calayhi salatu wasalaam yaa caaisha wax ani iga dambeeyo wax imaaday oo maaragtay khayr ah wax aan cunno ma haysan caaisha waxay tiri laa yaa rasuul allah waxaa ma hayn nabigu masaajidku iskaga laabtay alla bari buu iska galay nabiga calayhi salaatu wasalaam cuthmaan oo yidhi bal nabiga aad soo booqatid baa guriga imaaday caaishu salaamay radia allahu canha umulmu'miniin kabacdiba wuxuu weydiiyey nabiga waxay tiri nabiga wuu imaaday gurigana waxaa ku cuna waa waayey
masaajidku iskaga laabtay cuthmaan waa ilmeey nabigeena calayhi salaatu wasalaam baa hida hayso iyo si uu gurigiisa oga waayay wuxuu cuna buu cuthmaan la ilmeey markaasaa waxaa lagu noqday gurigu ku noqday wuxuu keenaa la kiish dhan oo qadaadiic ah oo lacag ah iyo intaasoo daqiiq ah iyo intaasoo cunto ah neef arina wuu soo qalaliin kiish dhan oo lacag ah iyo intaasoo cunto ah oo alwaan kala nooc nooc ah iyo neef ari uu yidhi harakaba hala kariyo asagoo waduu keenaa layidhi cuthmaan radia allahu canhu ardaa cajiib wuxuu ka xanuunsaday nebi maxamed waxaa qabsaday calayhi salaatu wasalaam nabiga alluu baryay waa soo laabtay yaa caaisha madaa cindakum maxaad haysaan waa nebi maxamed qofka sidaa le calayhi salaatu wasalaam nabiga aakhiru doorta iyo naciimka alle agtiisa yaalo waxay tihi yaa rasuul allah waxaan garanayay tihi alla barigaada ilaahay inuu kugu hoojinayn oo markaad masaajidka gashay ood alla bari gashay waxaan yaqiinsaday tihi ilaahay inuu ku hoojinayn ilaahay inuu ku hoojinayn waxaa imaaday tiri cuthmaan ibni cafaan wuxuu keenay intaasoo lacag ah wuxuu keenay intaasoo maaragtay xoolo ah wuxuu keenay neef dhan oo karsan markaasaa xale nabigeena calayhi salaatu wasalaam kelimad cajiib ah buu ku hadlay nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam ilaahayow ani cuthmaan raalli baan ka ahaye cuthmaan raalli ka ahow saas yidhi ilaahayow ani cuthmaan raalli baan ka ahaye ilaahayow raalli ka ahow waa kelimad aada u qaali ah ciddu rasuulka ilaahay uu raalli ka noqday cidda uu alla raalli ka noqday waa cuthmaan nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam buu dhibkii iyo rafaadkii uu ka garab istaagay walaalayaal fiiri saxaabada nabiga jacaylka ay u qabaan cuthmaan waa ilmeey xanuunka nebi maxamed qabtay buu ka xanuunsaday muxuu ku helay jaa-iso iyo abaalgud inuu rasuulkii allana ka raali noqday allana uu ka raali noqday ilaahayow ani cuthmaan raalli baan ka ahay ilaahayow adigana raalli ka aho ka warran walaalayaal waxaa loo baahan yahay qofka muslimka ah mawaaqifta khayriga ah inuu ku dadaalo dadka muxtaajiinta ahee baahan inuu ka farxiyo kam aad duco helaysaa kam ajir aad helaysaa kam ilaahay masaa'ib kaaga difaacaya saxaabada dayashaan noogu filan samaynta ay samayneen howlaha khayriga ah waddada ay mareen waa inaan marno jannada ay raadinayeen waa inaan ku raadino walaalayaal qisadan soo qaadashadeeda danta aan ka lahayn waxay ahayd inaan cuthmaan ku dayana radia allahu canhu waardaahu walaal qisada intaasaan kusoo koobi wabilaahi towfiiq wasali allaahuma wasalama calaa nabiyina muxamedin nebiyullaahi sulaymaan calayhi salaam qisadiisii baa qur-aanku kuu qayxee dhegayso akhriso oo culummada weydiiyey boqor afartii nine adduunka u soo talisay nin ka mida ayuu ahaa weliba mulkigiisu ma ahayn mulkigan bini aadanka keliya ay haystaan mulki rabbaaniya buu ahaayo ilaahay baa siiyey oo waxaa ka mida mulkiga nebi sulaymaan khalqiga adduunyada ku nool oo dhan baa la hoos keenoo loo sakhiray dabaysha ayaa loo sakhiray cafaariiddiiyo jinka ayaa isaga u shaqaynaysay shayaadiinta ayaa aqalladana u dhisaysay badaha intay u dhaadhacaanna jawaahirtiiyo dhaymanka u soo saaraysay hadalka shimbirahoo dhan buu nebi sulaymaan uu yaqaanay wa qaala yaa ayuha annaasu cullimnaa mantaqa atayri wa uutiinaa min kulli shay inna haada lahuwa alfadlu almubiin وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها بقرتو يدي إلى هالكاغاتي سمحادو ملين قرآن هذا ليس هذا الكيجي لما غشيه واربقر نوعاي أدونك مجرى ما صومري مي هدو صومرين وسليمان عليه السلام عد كلمه نبي سليمان نبي قاس ملكك انت اللي إلهي سيينا صع إلهي طاعت دي سمدافن إلهي ذكرقي سمح المامن حل مالين كلية قرآن إلهي كل شيء في سورة الصاد وعلى فرضه آذو جعلا طبعا فرضها أنا وأن جعلها في كل الزمان فرضه هو شيء غالية
fardihiisii ku geli jiray ayaa sidaa loo soo hormariyey baa la yidhi saacaddee saacaddu ilaahay dikrigiisa uu samayn jiray wasabbix bixamdi rabbika bilcashiyi waalibkaar saacaad waxaa jira ilaahay lala munaajoodo waa gellinka hore iyo gellinka dambe weeyaan waa inuu qofka mu'minku gartaa saacado waxaa jira ilaahay uu noo jideeyo la doonayo inaan adduunyada intoo ka imanno masaajidda soo galnoon ilaahay u dhowaanno ilaahay la munaajoonno saacaddii dikriga uu samayn jiruu rabbigii la munaajoon jiray ayaa fardihiisa sidaa loo soo hormariyey faqaala innii axbabtu xubba alkhayri can dikri rabbii xataa tawaarat bilxijaab rudduuha calaya fatafiqa masxan bisuuqi walacnaaq waa ka ilahay qur-aanka ku sheegay fardihii baa la hormariyey wuxuu yidhi fardaha aad i hormariseen waxay iga mashquuliyeen ilaahay xuskii bay iga mashquuliyeen buu yidhi dikrigii aan ilaahay xuskiisa aan qalbiga markaan dikrinaya aan ka macaansanayey ayay iga mashquuliyeene kulligood ii soo celiyey buuhi ii soo celiya kurkaan ka wada jarayaaye waxlii wixii daacadda ilaahay ka mashquuliyey nebiyadu qoortay ka goynayeen innaga salaaddaan tukanaynay imise jeer baa dukaanadeennu naga mashquuliyeen dukaanadeenna weli ma bixinay ninkee baa u bixiyo odhan kara dukaankaasi mar alli markaan salaadda galaan ku sahwiyaa ee ilaahay dartii baan u bixiyey ma jira ma dhici kartaa ma dhici karto fardihiisii uu ku xaragoon jiray ee weliba jihaadka uu ku geli jiray ayaa markii sidaa loo hormariyey waxay ka mashquuliyeen oo qalbigiisii ay ilowsiiyeen macaankii markuu ilaahay xasuusanaya uu qalbiga ka macaansan jiray ilowsiiyeen markaa buu yidhi igu soo celiya ii soo celiyey buuhi oo maxaa dhacay soo celiya waa la soo wada qabtay qoorta ka wada gooya buuhi ilaahay bay iga mashquuliyeen daacaddiisii marka haddaad madax tahayna madaxda waxaa la doonayaa inay ku daydaan nebiyullaahi sulaymaan calayhi assalaam mulkiga intaa leeguu haystay xaqii ilaahayna wuu ku gutay xaqii bini aadankana uu ku guto uu ku ilaaliyey baa la yidhi xaqii ilaahayna ma dayicin xaqii bini aadanku ay ku lahaayeenna ma dayicin waxauna ka baxay adduunka isagoo nebiyo mursalo ilaahayna uu raalli ka yahay